بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وسلم caawa walaalayaal caawa waxaynu gelaynaa oo ka hadlaynaa maareynta waqtiga ama waxa loo yaqaan time management ama idaarat alwaqt. ingiriisku waxay ku maahmaahaan waqtigu waa lacag, aniguse waxaan leeyahay lacag iska daaye, waqtigu waa ka qiimo badan yahay wax kasta. maxaa yeelay dahabka iyo dheemanka waad shaqaysan kartaa, laakiin daqiiqadba ha ahaatee wax zamana oo aada soo gadan kartid ma jiro. tusaale ahaan dadkoo dhan isku waqti bay haystaan, qof kasta 24 saac ayuu maalintii leeyahay. waxaase lagu kala tegey sida qofku waqtigiisa uu maareeyo ama uu ugu cayaaro. waxaa kaloo jira oo waqtigu la caadil yahay inaan la dhigan karin. waqtiga qeyb intaa meel dhigatid hadhow la soo bax ma yeelan kartid. sidoo kale qof kama soo amaahan kartid waqtiga oo ma dhigi kartid xoogaa isii waqtigaa, ama walaalo xoogaa waqtigaa adigu qaado, maanta adaa waqti u baahane. taasuna ma jirto. maamaha carbeed baa waxay odhanaysaa waqtigu waa seef oo kale, ama adaa goynaya ama isagaa ku goynaya. dhab ahaan markii loo hadlo daawade, adigoo dhan waxaa tahay waqti, ama second dheh ama daqiiqad dheh ama saacadba dheh. markii hal second kaa tago cumrigaaga, qeyb adiga ah ayaa tagay. dadka ku dheela waqtigooda waxa weeye kuwo aan lahayn yool nololeed ama himilo inay gaaraan ay rabaan. arrimaha aan soo sheegnay daawade waxay kuu tusayaan oo ku caddaynayaan qiimaha uu leeyahay maareynta waqtigu. walaal ha u maraynin maareynta waqtiga in laga wado inaad u shaqaysid sidii makiinad oo aadan nasan, taasu ma jirto. laakiin macnaha maareynta waqtiga waxaa laga wadaa nidaamsasho. waqtigaagii baad nidaamsanaysaa, oo xataa caydaad inaad cayaartid rabtid waqti baad u samaynaysaa. haddaan isku dayo inaan kuu fududayo waxa loo yaqaan maareynta waqtiga, ama sida ugu fiican oo loo maareeyo waqtiga waxa weeye caawa oo la joogo berri wixii aad qaban lahayd ayaad waxaad ku qoranaysaa meel. 1 shaygaas, 2 shaygaas, 3 shaygaas, 4 shaygaas, oo weliba waxa u kala horumarinaysaa say u kala muhiimsan yihiin ama u kala degdegsan yihiin. waxyaalaha marka qoratay berri marka la gaaro, matalan qeybna waad samaysay, qeybna maadan samayn. qeybta aadan samayn, kuwii aad samaysay waad tiraysaa, kuwii aadan samaynna berri baad ku daraysaa waxyaalaha dama aad samayn doonto. marka maareynta noocaasa, ama waxa la yihahda to do list ama qaa'imat alacmaal, ama waxyaalaha inaad samayso berri aad rabtid qorashadeedu, maxay kuu sahlaysaa inaadan shaqadii kale ilaawin, oo qeyb waliba wixii aad samaysayna aad og tahay, wixii aadan samaynna aada og tahay. nin tababare maraykana oo la yidhaahdo Stephen Covey ayaa oo caalamka aada looga yaqaan baa wuxuu sameeyey waqtiga jadwal buu u sameeyey ama table. jadwalkaasuu 4 ka dhigay, 4 qol. mid wuxuu ka dhigay hawl muhim ah oo haddana degdeg ah, hawl muhim ah oo haddana degdeg ah. tan labaad wuxuu ka dhigay hawl muhim ah oo haddana aan degdeg ahayn. tan saddexaad wuxuu ka dhigay hawl aan muhim ahayn laakiin degdeg ah. tan afraad wuxuu ka dhigay hawl aan muhimna ahayn degdegna aan ahayn. 4taasu u qeybiyey. dad badan ba waxay leeyihiin anigu waqti ma haysto, inaan wax bartaan rabaa, inaan qur-aan xafidaan rabaa, inaan shaqaystaan rabaa, inaan cilmi barto, laakiin waxba ma garanayo, waqti ma aan hayo. mathaal waxaan usoo qaadanaya nin professora ardadiisii usoo galay, markaasu wuxuu ku yidhi, wuxuu watay marka dhaluu watay, agteedana wuxuu dhigtay dhagaxyo waaweyn, qeybta kalena wuxuu dhigtay qururux, dhinaca kalena caruu dhigtay, dhinaca kalena koob biyo ah buu dhigtay. ardadii marka dhagaxiibu wuxuu ku guray dhaladii
markuu ka buuxiyey bu wuxuu yidhi arday ma buuxdaa dhalada tanu haabay yihaahdeen, haddaba ifiiriye buu yidhi. quruurixii buu soo qaaday, quruurixii buu haddana ku guray meelihii dhagaxyaha waaweynaa ay iska gaarin. quruurixii markuu ku dhameeyey yidhi ma buuxdaa dhaladii, haabay yidhahdeen way buuxdaa. caradii buu soo qaaday, markaasuu caradiina wuxuu ku shubay meelihii quruuruxa uusan iska gaarin. markuu caradii ku dhameeyey bu ma buuxdaa dhaladu, haabay yidhaahdeen. biyihii buu soo qaaday waa ku shubay, se waxay galeen meeshii caradu ayan iska gaarin. marka halkaa wuxuu maxaa laga faa'iidayaa buu yidhi, waxaa laga faa'iidayaa wixii inaad qabatid aad rabtid inaadan wakti u weynin. mar walba waxaad haysataa wakti, laakiin nidaamkii baa kaa xun iyo sidaad waktiga u nidaamsan lahayd. intaas baan kusoo koobayaa arinta muxuu ahaa waktiga iyo maareyntiisa. wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.